runtii rasuulka sallallahu alayhi wasallam aad buu la yaabay markii la weydiiyey qofka muslimka ah been ma sheegi karaa. laakiin haddii la weydiiyo qofka muslimka ah wax ma xadi karaa, nafaa qaban karta, gaajaa qaban karta, waxa uu xadi karaa ayuu yiri rasuulka sallallahu alayhi wasallam. ma zinaysan karaa, shahwiyi adduun ayaa qaadi karaa. laakiin markii la weydiiyey been ma sheegi karaa qofka muslimka ah, rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri maya. maxaa ku wata been, maxaa ku kalifayo been? wuxuuna daliil ahaan inoo siiyey hadalkii alla tabaaraka watacaala ay ahaa inamaa yaftari lkadiba aladiina laa yuuminuuna biaayaati illaah. been waxaa abuurta kuwa aanan rumayn aayaadka alle. maxaa kugu kalifayo adigoo alle tabaaraka watacaala rumeeyey inaad been sheegto? waxaad ogaataa runta dhibaato yar ayay leedahay. markaad sheegto ha lagugu qabsado, laakiin dhibaato dambe ma leh. laguguma nacaynayo, wax ka daba imaan karaana ma leh. laakiin been haddaad sheegtaa marka hore waa lagu dhoola caddayn, markii lagu ogaadan waxaa lagu leeyahay warkan inaga daa waa beenlow, hadalkaagana wax rumaysanaya ma leh. soomaaliduna waxa ay ku mahmahdaa beentaada hore runtaada dambe ayay dishaa. alle subxaanahu watacaala wuxuuna leeyahay fanajcal lacnata allaahi cala alkaadibiin. waxaad ogaataa intii runta sheegi jirtay qiyaamo markii la tago runtoodii waa ay anfacdaa. alle tabaaraka watacaala waxa uu suuratu lmaa'ida ku leeyahay qaala allahu hada yowmu yanfacu saadiqiina sidquhum. abaalgudkoodana muxuu yihi lahum jannaatun tajri min taxtiha alanhaar. rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuuna leeyahay calaykum bisidq, runta laazima. maxaa yeelay runta waxa ay kugu hogaamisaa samafalka, samafalkuna waxa uu ku geeyaa jannada. waxaad ogaataa alla tabaaraka watacaala waxa uu kugu daray qolada nebiyaasha ku xigta, magacooduna waa sidiiqiin. beenta way ka fogaadaan, waa in iska dheereeyaan. alla tabaaraka watacaala suuratu nisaa waxa uu ku leeyahay waman yudic illaaha warasuula faulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina, maxaa ku xiga, waasidiiqiina waashuhadaa'i wasaalixiin waxasuna ulaa'ika rafiiqa. kuwa lala jiro kuwa ayaa u wanaag badan. waxaad ogaataa walaashay macaan, walaalkayga qaaliga ah, runtu waa quruxdaada. markaad hadal sheegtana hadalkaaga laba ku burmayso. waxaan hadalkayga kusoo gabagabaynayaa hadalkii rasuulka sallallahu alayhi wasallam ee ahaa calaykum bisidq, runta laazima, fa ina asidqa yahdi ila albir. maxaa yeelay runtu waxa ay kugu hogaamisaa samafalka, wa ana albira yahdi ila aljanna, samafalkan waxa uu ku geeyaa jannada. wasala allaahuma wasalam calaa sayidina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama tasliiman kathiiran kabiira.